هذه الجورنال كان بيتصور وسيا أناليز كريسو وحبها هنسافين ديكسكي إن عاد ريبورت كريسو أما عاد لكم نكيد كريسو عيد كله سيابها وفي عم يوحوي فرينديكس كذا أدو قدين كرتا عيد كله وقدين كرتا وحوي أدو تشارتس يا جرافيكس كسمية أن SPSS مركز استعمال يسون SPSS وحوليه هي features أن يكوماندن والله بترجع إن أي كعاوين إن أدلت هذه الجرافيكالي هذا هو يبرسنت كريسون 10 كان يدورك 10 كحيجا وحين يكون إيه جدونا وحوي بالجرافيكس كان نوعية وذكر دوان يسد عاد برسن كرتو مركا 10 كان وحين يكون إيه جدونا أبوه رأيه سد عاد بارشات عاد وصل من كرتو لا تزداد وحين تيجي جرافيكس كده وحين تيجي شارت بيلر كم مركا هل كان وحوك كوبين دور قيود كوبين هل كان وحوي هو variable list كاجي كان واحد لها categories list وإنك variable كي كان gender وكذا أيوسي default تاجي هاي كدنا categories كيسي أي هذا كسوق لي هذا age تاجنا كان categories كود بسوق لي مكان كان هو variable list كان هو categories list هل كان fast بعدها وكان fast هو هل كان كاجي أتكو سمعين لهاي بصراحة وكذا إنك gallery من تاجنا يتابع gallery gallery waxaa ku jira charts kan noocyadooda kala duwana default ka ah SPSS wuxuu ii sii diyaariyay waxaan doonayaa bar chart inaan samaysto bar chart markaan ku dhufto noocyadii bar chart ku kala baxayay baa halkan soo gelaya gallery oo salaam reey kan line chart ku dhufto line chart baa soo gelaya bar chart ku nool bar chart kan noocyo kala duwan ayaa halkan ku jira iminka kuwan oo kale saddexda hore oo kale waxa weeye waa 2D saddexdan وحيانا هو 3D صدقاً هو كان هو سيم بار كان نوع لها كلاستر بار لها كان نوع لها ستاك بار لها وحيانا كلا دوان بيقبتان شارتس كان كلا دوان سيابا كلا دوان بدلاتها لوسو برسن كرين كرتا مركا الله مدبان سمين كرا جل رجيجا إن نوع عن دوني بار شارك عن دبل كليب السنة يإنام دراجرية كان كل جرية أنا حيانا حتى جيشتو كان فاسكت جيسي نسان كم فاصل مركز عاد جيستي نوع chart تيجي عاد دونيسي in this case symbol chart عين هو يجيسني كون كربل حاجة دمين كويك دونا مركز عاد جيستي هل كم حولها access drop box بالها access drop box كان هو statistics ويا مركز symbol chart كانوا كذا عين تعلمنا صراحة وكذا حدان دوني gender كيجا بيتفيدن gender كأيه male iyo female ku proportions ay ka yihiin variable kaygana soo jeediya gender kadib waxaan keenayaa access marka aan keeno canvas-ku wuxuu ku tusayaa siday daatadaadu u sii ekaan lahayd laakiin actual daatadaadu isticmaali maayo wuxuu isticmaalayaa numbers randomly generated just si uu illustration kaaga siiyo siday daatadaadu u sii ekaanayso maaha true datadaadii halkan markaynu gender aynu dooranay halkan si automatic waxa uu yaala count oo frequency the frequency hada dooraysa percent uu noqdo halkan waad ka bedelan kartaa waxa weeye halkan miki percent waan oran karaa percent markaan ilaahdo waxaan u baahanahay parameters waan u baahanahay marka set parameters aan ilaahdo gram totalka maxay ka yihiin totalka male muxuu ka yahay female totalka muxuu ka yahay taas waa taa waxyaalaha markaan taas sameeyo halkan countgiisa isu bedesho aan apply ilaahdo waxyaalaha kale ee properties kan ka bedeli karta waxa kamid ah bariska laftoodii sida loo eegaysiinaysaa salaam waxaad ka dhigaysaa IB mo kastana kale dan apply ilaahdo waxaad ka dhigaysaa whiskerkii exact ka dhigayso marka aan u dayo ka bariska original kooda aan dayo halkan waad ka bedeli kartaa waxyaalaha kale oo halkan ka qaban kartaa way jiraan haddaynu imika aan basic elements حتى gallery gan aad ka weydo noocii aad doonaysay chartigi halkan waad ka dhisan kartaa adigu oo basic elements kiiba halkan kuugu yaala waxa weeye adigu intaad daraagrayso waad dhisan kartaa taas waa shaqo hawl dheer oo tutorialskeenan beginning-ka introduction-ka kuma fargarayn doono halkan oo kale group ID-gi oo kale markaad doono imika halkan markaad taad check-garaysaa drop zone bay kuugu daraysaa sidaas oo kale waxa weeye canvas-kaaga hadhow aad variable aad u assign garayn karto
ayuu kugu darayaa marka nooca dambe bar chartkeenu ku eegayna iminka halkan waa halka aad adigu groups ama point IDs aad ka samaysan kar lahayd halkan ay ku taalo titles and footnotes titles baad ka samayn kartaa tusaale ahaan title kama kale halka title waa intaan doortay aan dhahdo male and female proportions apply baan leeyahay okay iminka variable-keenan genderku waa laba category oo qura waa male iyo female okay marka male iyo female ku waa labada baar oo qura bal intaynan halkaa dhaafin waxa weeye aan bedelo mid dhowr category leh aan doorano tusaale age oo kale waan ku dul variable-kii horun baan ku dul bedelayaa percentiga isna hay waxay okay title-kii title 1 waxaan leeyahay marka interval proportions baan idhaahdo proportions apply idhaahdo okay sidaa markaan idhaahdo yaan halkan agekii guriskaygaan dadka halkana percentigii aan halkan kasoo rifeengadnayba inuu yaalo okay baan leeyahay okay markaan idhaahdo syntaxkii ama commandskii generate gareeyay chartigana waa ii dhigayaa ayuu iisoo dhigayaa as output halkan waxaa iisoo baxay chartigii aan waxaweeye age categoriskaygii waxaweeye levelskii da-dii dadku sayn u kala qaybinaya 18 ilaa 24 intanay ka yihiin 25 ilaa 34 intaasay ka yihiin age intervalkii sidaan hore kugu sheegay chartigan haddaad doonaysa inaad wax ka bedesho double click baad ku samayn kartaa double click markaa ku samayn ba chart editor baa kuu soo baxaya tusaale ahaan oo kale haddaan colorkan jeclayn bariskanaan click garaynayaa kadibna fill and border baan tegayaa waxaan ka dhigayaa midabka aan jeclay baan ka dhigaya apply baan leeyahay midabka aan jeclay kan oo kale backgroundkan haddaan doonayn transparent baan ka dhigayaa kaba qaad backgroundka apply baan leeyahay kan oo kale waa bar chart waad aragtaa waxaa ugu badan da-da waxweeye 35 ilaa 49 u dhaxaysa haddaan doonayo siday u kala badan yihiin inuu kala horeysiiyo halkanaan tusaale ahaan aad keli garaynaysaa waxaad tegaysaa categories markaa imika halkan set sort by value baa ku yaala waxaan dooranaysaa statistic ayaad dooran kartaa kadibna descending baan dooran karaa si inta ugu weyn ay ugu horeyso apply markaan idhahdo waa kaa sidaa fiican buu isugu kii habeeyey waxa weeye descending say u kala yar yihiin okay halkan ay da-ahu iigu yaalaan haddaad doonayso inaad wax ka bedeshaygana waad keli garaynaysaa kadibna waxyaala fara badan waad ka bedeli kartaa jirinka size oo kale haddaan doonayo inaan ka bedelo text style baan tegayaa halkan maxaan oran karaa quality garig baan oran karaa apply waa kaa okay halkaa percent ay ku taalloo kale waxaan rabaa inaan iska masaxo click baan ku samaynayaa kadib markaan ku sameeyo label antigis markaan idhaahdo displaydaan ka qaadayaa kadibna apply baan leeyahay waad arkaysaa sidaan hore kuugu sheegay haddaad u baahantay waad transpose garayn kartaa oo chartigiisa waad u dhigi kartaa okay saas waxa weeye waa sidaad simple bar chart aad u samaysan lahayd markaad hawshaada ka qabsato simply output viewerkii ayaad keli garaynaysaa taas waa simple chart bal waxaad ka soo qaadaa kawan haddaynu doonayno inaynu da-ahan aynu u kala jibino rag iyo dumar aynu u kala qaadno inagoo bar chartka isticmaalayno bal sida aad u samaynayso taana aan ku tusa graphiski baad ku noqonaysaa chart builder baad ku noqonaysaa kayga horaa iisii yaala okay laakiin galerigan tegaya halkan kan aan doorta kan clusterka double click aan ku sameeyo marka waxba ismay bedelin agekaygi iyo countigii ayaa halkan ii yaala waxaan rabaa inaan gender u kala qaado male iyo female halkaas ayaan geenayaa waxa weeye clusterka warka ayaan geenayaa marka hadhow muxuu igu kala jebinayaa male iyo female ayuu kala jebinayaa sidii caadi yahay halkan percent waan dooran karaa ama cumulative percent waan dooran karaa okay apply baan leeyahay okay markaan idhaahdo fiiri chartkaygu waa kan colorka waxaad arkaysaa markaad kiiga eegto inuu male yahay kaa bluega ahna inuu female yahay markaa kan waa malekii kan waa femalekii sidiisii lamida ayaad iyagana aad u habeyn kartaa tusaale ahaan descending aad u samayn kartaa static haddaynu tagno descending aynu tagno apply aan idhaahdo okay
أسد مدعونا تمر بسد اسمها وقع كوي مدونتك كوي هي واحد منيك وكحيجا جروب كستا تاسو هاي كلاستر بارشار يسمى بارشار صادو سمان الهيدوية